kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa shabakada wararka ee Soomaali Barays ku soo dhawaada warbixintan gaarka waxyaabaha aynu diiradda ku saari doono waxa qayb ka ah Al-Shabaab oo bilaabay xeelado cusub oo weerar ay ugu fulinayaan Muqdisho mas'uuliyiinta ayaa si gaar ah waayihii dambe bartilmaameed ku saarna haddaba sababtu maxay tahay warbixintan ayaan ku dul istaagi doonaa fadlan muuqaalkan hadduu soo gaaro daawada si share gareeyo saaxiibadaada kale la sii wadaag page-keena Soomaali Barays iyo sidoo kale YouTube-keena hadaa ku cusubtaana soo dhawo wararkumo si aad u hesho xogaha aynu halkan soo gelino waqtiyada ugu dambeeyay waxa soo kordhaya weerarada ay fulinayaan dadka isku soo rakaba jaakadaha walxaha qarxa laga soo buuxiyo kuwaas oo fuliya ururka Al-Shabaab waxa ugu dambeeyay weerarka xad qof warxaha qarxa isku soo xiray oo la beegta afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalimow oo loo dhigay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho kadibna loo qaaday wadanka Turkiga si lagu soo baxnaaniyo halkaas xaaladiisa caafimaad inkastoo haatan ay wanaagsan tahay haddaba sababtu maxay tahay kalafaysa inay isticmaalaan taatikadan cusub Al-Shabaab muddooyinka ugu dambeeyay waxaa yaraaday gawaarida laga soo buuxiyo walxaha qarxa ee lagu weerari jiray dhismayaasha dawladda hoteelada magaalada Muqdisho oo bartilmaameedsan jireen ururka Al-Shabaab qobarada ku xeel dheer ee arrimaha ammaanka ayaa ku dooday in suurtagal ay tahay in Shabaab dhowr arrimood ay ku dhalisay inay si weyn u adeegsadaan dadka ay ku soo xirayaan jaakadaha qarxa ee weerarada haatan fulinayo haddaba Xuseen Macalin oo kamid ah dadka ka faalooda arrimaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa ku sheegay sababta ay weerarada Al-Shabaab waayihii dambe ugu bedeleen dadka warxaha qarxa isku soo xirayo ku tilmaamay arinta shakhsiyaad lala beegsanayo oo qof isku soo xiro waxyaabaha qarxa waxay tahay mid aad u sahlan oo isleeyihiin waad ku dhaawacin kartaan xubnaha muhiimka ah ee dawladda iyo dadka shacabka xanuunka ay dareemayaan haddii wax loo geysto haddaba maxaa bedelay taatikadii hore ee Al-Shabaab ciidanka dawladda waxay ku doodayaan inay muddadii ugu dambeysay ay deegaanada Shabaab weerarada ay ku soo abaabuli jireen ay weerar ku ekeeyeen deegaano muhiim ah laga saaray iyo buundooyin ay gawaarida soo marsii jireenna la jaray taasi waxay keentay inay markasta Al-Shabaab ay masaafo ahaan laga fogeeyay caasimadda si ay u yaraato qaraxyada ay soo gali jireen dhanka kale waxa la xiray wadooyin badan oo ku yaal magaalada Muqdisho halkaas oo ay mari jireen baabuurta qaraxda hase yeeshee dadka u xeel dheer arrimaha ammaanka ee gobolka ayaa sheegay inay jiraan taatika badan oo isticmaalaan sida miinooyinka dhulka ay galiyaan kuwa booda waxyaabaha dambe ee gawaarida ku tuuraan bubooyinka gacanta laga tuuro biskoolada dadka lagu qaarijiyo iyo gawaarida qaraxyada lagu soo buuxiyo hoteelada iyo goobaha dawladda ay galaan inta oo tab ay haystaan oo marba mid lagu adkeeyo mid aan ahayn ayay la yimaadaan ayuu yiri Xuseen Macalin oo kamid ah dadka arrimaha ee ammaanka ee Soomaaliya ka faaloodo baabuurta laga soo buuxiyo walxaha qarxa ee howshooda aad bay u fara badan tahay laakiin qofka iyo jaakada loo soo geliyo dad aad u yar iyo waqti kooban ayaa lagu sameeyaa dabcan dadka waxa jiro lana doontaan weeraradooda hoteelada muhiimka iyo sidoo kale shakhsiyaad muhiim u ah bulshada iyo madaxda dawladda ka tirsan Xuseen Macalin waxa uu ku doodayay inay jiraan liis ay Shabaab ku qoreen dad badan oo sarsaro dawladda ka tirsan kuwaas oo haatan u qorsheynayaan sida ay qaraxyo ugu qaarijin lahaayeen tababaro ay siiyaan sidoo xusay dadka isku soo xira walxaha qarxa oo jaakadaha waayihii dambe badiyeen kuwaas oo suurtagal ah in ay madaxda iyo sidoo kale u adeegsadaan goobaha muhiimka ee bulshada isugu timaado haddaba maxay tahay taxadarka weerarada noocan oo kala qobarada ammaanka ayaa ku doodayay in hay'adaha amniga ee Soomaaliya ay shaqadoodu tahay inay bixiyaan talooyin ku saabsan weerarada isqarxinta ah ee lagu beegsanayo madaxda dawladda iyo shacabkaba hase yeeshee si gaar ah waxa Xuseen Macalin oo hore u soo noqday la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka ayaa sheegay in dadka iska leh in bartilmaameed noqdan karaan inay iska ilaaliyaan dhowr arrimood inay iska ilaaliyaan jadwal deegaan oo loo fiirsado qofka lagu ogaan karo xilliyada uu baxayo iyo sidoo kale meelaha gaarka ah oo rukunto u fariisto taas waxa uu qofka hadduu iska dhowro ay yaraanayso sidii loola bartilmaameedsan lahaa qaraxyada jaakadaha waayihii dambe soo batay Shabaab difaac kaliya kuma filna balse qaab kale looga hortagi karo ayaa ah in la weeqo awoodooda iyo in dawladda ay ka shaqeyso sidii Shabaab awood u waayi lahaayeen iyo inay diyaariyaan dilalka noocaas oo kale ah iyo qaraxyada waayihii dambeba ay la beegsanayaan madaxda sarsare ee dalka ayuu yiri Xuseen Macalin madaxa macadka Hiraal ee ammaanka ka faalooday magaalada Muqdisho sanadiyadii la soo dhaafay waxa wadooyinka Muqdisho ka dhacay qaraxyo intooda badan loo adeegsada gawaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa hase yeeshee waxa jira kuwa ay ku fuliyeen dad isku soo rakabay jaakada laga soo buuxiyo walxaha qarxa oo bartilmaameedsanaya dad caan ah ama goobo ay dad badani ku sugan yihiin
khubarada ammaanka ayaa faraysa madaxda dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedba inay ka fogjignaadaan wax kastoo khatar ka soo wajihi karto. Madaxda ayaa si gaar ah lagu wargelinaya iyo dadka kale caanka ah inay ka fogaadaan goobaha bartilmaameedka ah oo lagu soo wajihi karo iyo meelaha ay iska rukumanayaan, taas oo ah in ay xeelad u isticmaalaan oo fadhiyadooda bedelaan si aan hal meel lagu baran. haddaba shabaab waayihii dambe waxay kordhinayaan weerarada ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho haatan oo dalka ku jira doorasho ayaana ah mid ay si abuuri karto xiisad hor leh taas oo caqabad ku ah ammaanka dalka, balse dowladda waxay xakameynaysaa sidii lagu hortagi lahaa bartilmaameedyada al-shabaab iyo sidoo kale weerarada qaraxyada ahaa ee waayihii dambe ay ka fulinayaan caasimadda iyo gobolada qaar. inta ayaan kusoo gabagabeynaa daawadayaal warbixintan gaarka oo aad ku mahadsantahay daawashada. fadlan muuqaalka sii share garay saaxiibadaada kale la sii wadaag YouTube-keena Somali Barays, subscribe ka saar sidoo kale page-keena follow iyo like ku qaba. mahadsanidin.